xirfadley waxay dugsigeeda ku soo kordhisay horumaro cusub oo waxbarashada ardayda si weyn ugu fududeynaya. Waxaa ka mid ah chatbot casri ah oo shaqeynaya 24 saac, kaasoo ardayga ka caawinaya su'aalaha dugsiga, hagidda waxbarashada, iyo xalinta caqabadaha inta uu waxbaranayo. Chatbot-kan waxaa lagu tababaray xog gaar ah oo la xiriirta xirfadley, wuxuuna ku shaqeeyaa af Soomaali nadiif ah oo si fudud loo fahmi karo. Haddaba aan isla fiirino chatbot-kan siduu u shaqeyn doono iyo siduu ardayga uga caawin doono wuxuu markaas u baahan yahay iyo su'aalaha uu weydiin doono. Markaad website-ka soo gashid oo aad ku soo qortid xirfadley.com, halkan buu ku keeni doonaa oo ah front-end-ga website-ka. Marka halkan uu ku keeno, halkan hoosaad fiirinaysaa WhatsApp-ka ma ahane, halkan calaamadan chat-ka ee buluugga ah ayaad ku dhufanaysaa, click baa leedahay. Markaad ku dhufatid, halkan buu kuu soo furayaa, waxaana ku qoran xirfadley AI support. Halkan waxaa ku qoran assalaamu calaykum, soo dhawow. Halkee rabtaa inaad maanta wax ka bilowdo? Sidee rabtaa in lagu caawiyo? Marka adiga waxaa weydiinaysaa su'aalaha aad rabtid inaad heshid jawaabahooda, sidoo kalena aad rabtid in lagu faahfaahiyo. Haddaba aan isla fiirino, anigu waxaan weydiin doonaa dhowr su'aalood oo kala duwan, kuwaas aan ku weydiisanayo koorsooyinka marka aan rabo ama igu habboon, iyo siduu isna iiga caawinayo uu ii saacideyn doono. Haddaba aan isla fiirino. Okay, su'aasheena koowaad aan weydiinayno waxay tahay, waxaan leenahay su'aasha aan weydiiyey oo meesha ku qoran waxay tahay koorsigee ii fiican aniga oo bilow ah. Haddaba waxaan leenahay meeshaas calaamada yarta madowga ah baan ku dhufanaynaa ee fallaarta ah si marka aan u dirsano su'aasheedii una helno jawaabta. Isla markaas wuxuu raadinayaa su'aasha aan weydiinay jawaabteeda, waxayna qaadanaysaa si uu markaa jawaab nadiif oo fiican inoo siiyo xoogaa sakana ah. Hadda waa kan jawaabtii buuna siiyey. Su'aasha aan weydiinay waxay ahayd koorsigee ii fiican aniga oo bilow ah. Wuxuu yidhi maadaama aad tahay qof hadda bilaabaya beginner oo aad u baahan tahay waxa aad moobilka keliya ku baran karto, halkan waxaa ah 3 doorasho ee kugu habboon. 3 doorashuuna siiyey maadaama inaga bilow aan ahnay. Video editing oo kabkaada oo aan taleefanka ku baran karno 1. sidoo kale Canva Master buuna siiyey course kaasna aan taleefanka ku baran karno oo basic ah qofkana anfacayo. Sidoo kale wuxuuna siiyey Forex oo isna aan ku baran karno taleefankeena, ahna koorsooyinka markan oo dadku ugu jecel yihiin ama ay xiiseeyaan ayna raadiyaan. Halkan waxaa ku qoran faahfaahinno dheer uu qofku akhrisan karo, yacni details badan buu ku weydiinayaa, marka adiga waxaa lagaa rabaa inaad akhrisatid. Su'aasheeni koowaad saas aan ku weydiinay, jawaabteenina wuuna siiyey. Su'aasha xigtaan weydiinaynaa. Su'aasheena labaad aan weydiinay waxay tahay, waxaan ku yidhi koorsigan ma iga caawin karaa inaan lacag ka sameeyo? Waa koorsiyaashan uu ii soo sheegay. Haddaba aan click siino si aan u helno su'aasha aan weydiinay jawaabteeda. Jawaabtii wuuna siiyey. Waxay kor baan u yara soconaynaa. Wuxuu yidhi haa, gebi ahaanba ujeedada ugu weyn ee loo aasaasay xirfadley waa in dhalinyarada la baro xirfado tayo leh oo ku kordhistaan fursadahooda shaqo, isla markaana ay dakhli uga soo saari karaan. Marka waa kana waxaa ka mid ah qofka uu lacag kaga sameyn karo inuu ku shaqeeyo freelance-nimo ama freelance uu ku shaqeeyo. Sidoo kale inuu uu barto xirfadii kabacdi uu dhiso website-yada. Sidoo kale inuu barto ganacsiga e-commerce-ga dan uu ku shaqeysto hab online ah. Inuu barto trading-kii sida crypto ama forex kabacdi uu ku shaqeysto maalgashi ama trader uu noqdo qofka. Marka su'aashan xigta aan weydiinayna waxaan leenahay hadda waa maxay xirfadley? Su'aashan xigta hadda aan weydiino waxay tahay waa maxay xirfadley? Maxay ka caawisaa ardayda? Oo fiirina wuxuu noogu jawaabo. Waxay raan kor u socono. Waa kan su'aashii aan weydiino ahayd waa maxay xirfadley? Maxay ka caawisaa ardayda? Wuxuu noogu jawaabay xirfadley waa madal waxbarasho oo online ah, e-learning platform, taasoo u shaqeysa sidii dugsi ama akademiyad bixisa koorsooyin tayo sare leh. Waxaa la aasaasay sanadkii 2021 waxaana aasaasay Geela Bashiir. Madashu waxay xoogga saartaa barashada xirfadaha casriga ah ee dijitaalka ah, iyadoo casharadu ku baxayaan af Soomaali fudud oo tayeysan. Waxaa halkan ku qoran sidee ayay xirfadley u caawisaa ardayda? Xirfadley waxay ardayda ka caawisaa dhinacyo badan oo muhiim u ah noloshooda iyo mustaqbalkooda shaqo. 1. Kor u qaadista xirfadaha. 2. Fursadaha shaqo. 3. Shahaadooyin
digital ah. 4 waxbarasho fudud oo jaban. Sidoo kale 5 fahamka luqadda. Okay, taasina waxay ahayd su'aashii aan ku weydiinay waa maxay xirfadley maxayse ardayda ka caawisaa. Any su'aal aad rabtid inaad weydiisid isla markaasna isna wuxuu diyaar u yahay inuu kaaga jawaabo. Haddii marka ay ku saabsan tahay cashir ama ay ku saabsan tahay koorsada marka aad rabtid inaad baratid inuu kaa caawiyo. Kulli waa lagu tababaray si fududna oo fasiix ah oo la fahmi karana wuu kuugu jawaabayaa. Marka waxaan rajeynayaa inaad ka bogataan. Sidoo kale wuxuu kaa caawinayaa koorsada meeshaad fahmi weydid oo kale inaad weydiisid aad tirahdid halkaa iyo halkaas waa fahmi waayey sidee u sameeyaa ama habkaas sidee u raacaa. Yacni wuu ku caawin doonaa in badan adigoo markaa aad u baahan qofna insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. Chatbot-kan markasta waa mid aan ugu talagalnay inuu caawiyo ardayda isla markaasna uu ka haqabtiro su'aalaha ay qabaan uuna siiyo jawaabo fasiix ah oo markaas uu ardaygu ku dabaqi karo koorsooyinka ama koorsada uu qaadanayo. Isla markaasna uu qofku fahmi karo jawaabaha uu bixinayo. Haddaba chatbot-ku waa kaaliyaha ardayga ee waxbarashada. Wuxuu ardayga ka caawinayaa inuu si fudud u helo xogta uu u baahan yahay, u fahmo casharada, una doorto koorsiga ku habboon isagoo markaas aan cid kala sugin. Wuxuu ardayga ka caawinayaa hagidda koorsooyinka, fahamka casharada adag, helidda tallaabooyin waxbarasho iyo xalinta dhibaatooyinka intuu wax baranayo.